السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaal maanta waxaan idiin sharaxayaa filim horor ah oo lagu magacaabo Fido. daawo oo iska taxadar. filimku wuxuu ku bilaabanayaa meerayaal hawada sare oo caalamka ka baxsan ayaa waxaa ka soo baxayo shucaac kaasi oo caalamka oo dhan qalinayo. shucaac wuxuu sababay in qabuurihii ay soo baxaan dadkiina ay weeraraan. durbadiiba caalamka oo dhan ayay ku faafeen. dadkii bani'aadamka ayaa waxay ku jawaabeen dagaal, waxaana bilowday dagaalkii horarka. bani'aadamka way ku adkeyd inay ka guulaystaan horarka, laakiin waxay garab ka heleen dhakhtar lagu magacaabo Reinhold. Dr. Reinhold wuxuu aasaasay hay-adda la diriirta horarka oo lagu magacaabo Zomcom. dhakhtarku wuxuu ogaaday haddii maskaxda ka bixiyo horarka inuu si toos ah u geeriyoonayo. askarta ay ku khibradan kaashanayaan waxay bilaabeen in horarka ay madaxa ka toogtaan. ugu dambeyntiina dagaalkii yaa lagu guulaystay. hay-adda Zomcom waxay dhistay darbiyo silig ah si loo badbaadiyo nolosha aadamaha. marka ay dadka dhintaan oo la aaso, waxaa dhacdo inay dib u soo laabtaan kadibna ay bani'aadamka weeraraan. laakiin Dr. Reinhold ayaa wuxuu la yimid fikrad cusub. wuxuu ikhtiraacay suun qoorta loogu xirayo horarka, ayadoo horarka ka dhigayso sidii ay rabaayad oo kale, taas oo horar ka dhigayso mid aanan dhibaato lahayn. iftiin cas oo ka soo baxayo suunka ayaa wuxuu caddaynayaa in horarka uusan wax dhibaato geysaneen. aadamaha waxay bilaabeen inay ku shaqaystaan horarka, halka kuwa ka dhaga adeega inay rabaayad noqdaan. qoorta in la ka jaro kadibna la aasayo si aysan dib ugu soo laaban. iskool ku yaal magaalada Wiilad, carruurta waxaa la barayaa taariikhda horarka. ayadoo casharkaas socdo waxaa meesha soo galay maareeyaha guud ee hay-adda Zomcom, taasi oo ah hay-adda la diriirka horarka. ninkaas oo lagu magacaabo John inantiisa oo lagu magacaabo Cindy, ayadana sidoo kale waa ardayad. wuxuuna u sharcay carruurta taariikhda horarka. wuxuu sidoo kale baray carruurta sida loo tuuro xabadaha si ay isugu diyaariyaan weerar uu horarka ugu soo qaado aadamaha. Timmy oo ah ardayda meesha wax ka barato, markuu guriga ku soo laabtay wuxuu arkay qoyska Barrows oo adeegsanayo horar shaqaale ahaan. Timmy hooyadiis oo Helen ayaa guriga ku soo dhaweysay markuu iskool ka soo laabtay. habeenkii markii la gaaray, aabihiis oo lagu magacaabo Bill ayaa guriga ku soo laabtay. wuxuuna ka yaabay markuu arkay Helen inay diyaarisay cunno tiro badan, waxayna u sheegtay inay soo iibsatay horar shaqaale ah si uu shaqada xaafadda uga caawiyo, halka Bill uu yahay mid ka cabsanayo horarka. Helen ayaa waxay ku dooday in deriskooda ay haystaan 6 horar oo shaqaale ah. Bill ayaa wuxuu bilaabay inuu ku ciyaaro horarka, wuxuuna bilaabay inuu suunka ku dhaawaco asagoo badanka adeegsanayo. Timmy ayaa ka xanaaqay, wuxuuna aabihiis u sheegay inuu joojiyo. Timmy banaanka u soo baxay, wuxuuna arkay horar shaqaale ah oo dhulka aruurinayo caagadaasoo hurmuud lagu hagayo si loo weerariyo horarka. Timmy ayaa wuxuu aaday geedaha dhexdiisa, wuxuuna arkay 2 wiil oo hurmuudka wato kuna ciyaarayo horarka. 2dii wiil ayaa dhulka ku dhuftay Timmy, waxayna bilaabeen in ay qoriga ku dhuftaan ka hor inta horarka Timmy uusan ka soo gaarin. wuxuuna tuuriyay inamadii, waa uuna badbaadiyay Timmy. taa beddelkeeda Timmy waxa uu uga magac daray Fido. kadibna labadooda waxay bilaabeen inay ciyaaraan cricketka. Timmy ayaa wuxuu bilaabay inuu kubadda meel fog u tuuro si Fido oo ah horarkiisa uu u soo qabto. siday u ciyaarayeen kubaddii cricketka ahaa ayaa waxay ku ag dhacday naag dhib badan oo lagu magacaabo Hender. Fido markuu isku dayay inuu kubaddii soo qabto, naagtii Hender ahayd ayaa waxay bilowday in ay bakooradeeda ku dhufato Fido, taasoo sababtay in suunkiisa uu halaabo, horarnimadiina uu ku soo laabto. Fido waa uu cunay marwadii Hender ahayd. Timmy marka uu soo gaaray waa uu argagaxay. Fido waxa uu soo dhaqaaqay dhankaas iyo Timmy asagoo doonaya inuu cuno, laakiin nasiib wanaag suunkii qoortiisa ku xirnaa ayaa dib u shaqeeyay. Timmy ayaa dib guri ugu soo celiyay, laakiin waxay hilmaameen in ay kubaddii soo qaadaan. Timmy markuu guriga soo laabtay wuxuu arkay ninkii John ahaa oo gurigooda joogo, asagoo aabihiis ka wada hadlayaan geeridii naagtii lagu magacaabay Hender. Timmy oo ogaa waxa sababay geeridii naagtii lagu magacaabay Hender ayaa argagaxay. marka uu John baxay, Timmy waxa uu sheegay hooyadiis
in Fido uu yahay mid ka cunay naagtii Hender lagu magacaabo. Hooyadiis ayaa u sheegtay inuu aamuso, haddii kale in qoyskooda oo dhan laga musaafiri doono magaaladan. Habeenkii markii la gaaray, naagtii lagu magacaabay Hender ayaa ayadana waxay isku beddeshay horor, waxayna bilowday inay dadka weerarto. Timmy oo ka cabsanayo in qoyskooda laga musaafiriyo magaaladan ayaa wuxuu bilaabay inuu baadi goodo naagtii Hender ahayd, laakiin wuxuu ogaaday in ay horor isku beddeshay. Durbadiiba waxaa soo weeraray hororkii naagtii Hender ahayd. Timmyna wuxuu bilaabay buruskii uu madax ugu dhufto, waa uuna aasay naagtii Hender ahayd. Madax ayuu ka gooyay naagtii Hender ahayd, kadibna waa uu aasay. Habeenkii markii la gaaray, Timmy ayaa wuxuu arkay hororkii Fido ahaa oo banaanka jooga, xarigna uu ku xiran yahay asagoo cabaadayo. Timmy ayaa wuxuu go'aansaday inuu ka soo xadheeyo roobka, laakiin markuu dhankiisa aaday wuxuu arkay in suunkii qoorta ku xirnaa uusan shaqaynayn. Durbadiiba qayladii ayaa waxay soo kicisay nin deriskooda ah oo lagu magacaabo Boris, waxaana go'aansaday inuu caawiyo Timmy si suunka qoorta wuxuuna go'aansaday inuu caawiyo Timmy si dib loogu hagaajiyo suunka qoorta ugu xiran Fido. Ugu dambeyntiina waa ku guuleysteen inay dib u hagaajiyaan suunkii Fido. Maalintii xigtay, Helen ayaa waxay bilowday inay diyaariso hororkeeda Fido si ay ku qayb galaan aas loo sameynayo horor. Qoyskii ayaa ka qayb galeen aaskii, laakiin waxaa dhacday in madaxa iyo jirka laba sanduuq lagu kala rido. Nasiib xumo waxaa dhacday in hororkii ay qaniintay naagtii Hender ahayd uu asagana bilaabo inuu dadka kala weeraro, taasoo magaalada ka dhigtay mid wada horor ah. Hay-adda Zomcon ayaa waxay bilowday inay xaaladii la tacaasho, ayadoo bilowday inay toogato dadka hororka noqday. Maalintii xigtay, Helen ayaa waxay aragtay inankeeda Timmy ah oo la ciyaarayo Fido, waxayna garwaaqsatay in inankeeda uu helay saaxiib cusub. Waa ayna ku faraxday, waxayna bilowday in ay juuska Fido ay u keento. Laakiin ninkeeda Bill ahaa ayaa wuxuu ku yiri in hororka uusan u baahnayn wax cabitaan ah iyo cunno, laakiin Helen ayaa waxay ku adkaysatay inuu u baahan yahay, waxayna bilaabeen inay wada ciyaaraan. Maalintii xigtay, Fido iyo Timmy ayaa waxay bilaabeen inay dhankaas iyo buurta aadaan. Siday u socdeen waxaa ka hor yimid labadii inan ee dhibka badnaa oo qoryo wato, waxayna bilaabeen inay geed ku xiraan labadoodaba. Mid ka mid ah ilmadii ayaa wuxuu bilaabay inuu jabiyo suunkii ku xirnaa Fido. Fidona waxaa isku beddelay horor, laakiin waxaa dhacday in mid ka mid ah uu xabadii tuuro, waxayna ku dhacday saaxiibkiisa kale. Fido ayaa ceersaday inankii kale, waa uuna cunay, kadibna wuxuu ku soo dhawaaday Timmy, laakiin ma uusan taaban maadaama uu saaxiibkiisa yahay. Markii uu ku guuldaraystay Fido inuu saaxiibkiisa Timmy uu ka furo xariggii, Fido ayaa wuxuu u sheegay Helen ayay soo raaceen si ay u soo badbaadiyaan Timmy, laakiin mid ka mid ah inamadii ayaa wuxuu isku beddelay horor asagoo Timmy soo weeraray. Laakiin durbadiiba waxaa meesha soo gaaray Fido iyo Helen ayagoo badbaadiyay Timmy. Maalintii xigtay, shaqaalaha hay-adda Zomcon oo la diriirta hororka ayaa waxay arkeen maydka naagtii Hender ahayd, waxayna sidoo kale soo qufeen kubaddii ay ku ciyaarayeen Fido iyo Timmy. Waxaana dhacday in Fido xabsiga la geeyo. Timmy ayaa ka daba orday baabuurkii lagu xiray Fido, laakiin waxaa istaajiyay ninkii lagu magacaabayay John. Maalmo kadib, John inantiisa oo lagu magacaabo Cindy ayaa waxay u sheegtay Timmy in saaxiibkiisa Fido uu nool yahay, waxayna u sheegtay in Fido uu joogo warshadaha hororka ka shaqeeyaan. Timmy ayaa wuxuu gar weydiistay saaxiibkiisa Boris si ay warshada u aadaan ayna soo badbaadiyaan Fido. Boris waa uu ka ogolaaday. Asaga iyo Timmy waxay aadeen warshadii ku shaqeynayay Fido. Boris ayaa wuxuu bilaabay inuu jabiyo suunka mid ka mid ah hororadii si ay dadka u buuqaan, meeshan uu qalalaaso uga dhaco. Timmy ayaa wuxuu ku guuleystay inuu gudaha u galo warshadii, halka Borisna uu bilaabay inuu la dagaaltamo John oo ah maareeyaha xaruntaani. Ayaa wuxuu kaamirada ka dhex arkay Jimmy. John ayaa wuxuu qabtay Jimmy, wuxuuna bilaabay inuu u tuuro dhankaas iyo qaybtii ku nool yihiin hororka. Inankii yaraa waxaa soo weeraray hororka. Durbadiiba meesha waxaa imaaday Fido iyo Bill oo ah inankan yar aabihiisa, waxaana dhacday in labadooduba ay isdagaalaan. Timmy wuxuu ku guuleystay inuu iska furo siligii,
isagoo soo galay meeshii ammaanka ahayd. laakiin waxaa dhacday in john uu dilo bill. timin wuxuu sameeyey inuu jebiyo suumkii fido si uu u cuno john. fido ayaa wuxuu ku guulaystay inuu cuno john. timin saas ayuu ku badbaaday. waxaana dhacday in fido uu dib u helo xornimadiisa uuna si fiican ula noolaado qoyska helen iyo timi. waxaana dhacday in john uu noqdo horor. waxa uuna rabaayad u yahay inantiisa cindy. filimkana meeshaas ayuu ku dhammaaday.